Assalaamu calaykum. Soo dhawaada daawadayaal. Waxaan muuqaalka maanta uga hadli doonaa sidii shimbiraha Mareykanka u basaasi jireen waddanka Ruushka. Sida shimbiraha Mareykanka ugu basaasi jireen Ruushka oo la kashifay. Hay'adda sirdoonka Mareykanka CIA-da ayaa faahfaahisay sida Mareykanku howlaha basaaska ugu adeegsan jireen shimbiraha intii uu socday dagaalkii qaboobaa ee kula jireen Midowga Sofiyeed. Faylasha la soo bandhigay ayaa muujinaya sida nooc ka mid ah shimbiraha Soomaalida qaar ay u yaqaanaan qowley ama xamaam loogu tababari jiray in howlgallo basaas ah ka soo sameeyaan xarumo laga heli karo xogo sir ah oo xasaasi ah, kuwaas oo ku yaala gudaha dhulkii uu gacanta ku hayay Midowga Sofiyeed oo uu horkacayay Ruushka. Shimbirahan ayaa sawirro muhiim ah ka soo qaadi jiray meelo loogu talagalay inay si qarsoodi ah ku tagaan, sida warbixintan CIA ku sharaxday. Xogta shaaca laga qaaday ayaa sidoo kale lagu sheegay faahfaahin buuxda oo ku aadan sidii shimbirka tukaha loogu dhiibi jiray qalabka codka gudbiya, kuwaas oo ay ku ridi jireen daaqadaha xafiisyada la basaasayo, iyo weliba qaabkii xayawaanka loo yaqaanay hombro ee badda ku jira loogu tababari jiray howlgallada biyaha hoostooda ah. Taliska CIA ayaa aaminsan in xayawaanadan ay fulin karaan shaqooyin aad u culus oo muhiim u ah howlaha sirdoonka Mareykanka. Gudaha saldhigga CIA ee magaalada Langley ee gobolka Virginia waxaa ku yaala matxaf aan dadweynaha loo ogoleen in ay booqdaan, kaasoo la rumaysan yahay in waxyaabo badan oo sir ah ay ku kaydsan yihiin. Weriye ka tirsan BBC-da oo halkaas u tagay inuu soo wareysto agaasimihii hore ee CIA ayaa ku soo arkay waxyaabo qayrul caadi ah oo u muuqda inay yihiin qalabka codadka duuba iyo agab kale oo basaaska loo isticmaalo. Sanadihii 1970-meedii, howlgallada basaaska ee Mareykanka magaciisa sirta ah wuxuu ahaa Takana. Qaybo badan oo ka mid ah shaqooyinkaasina waxaa qaabilsanaa shimbiro la isticmaalayay kaamirooyin fudud oo si loo diyaariyay u qaada. Sida macluumaadka la shaaciyay ay muujiyeen, waxaa CIA ku faa'iidaysatay nooc ka mid ah shimbiraha oo awood cajiib ah u leh inay sameeyaan waxyaabaha qaar ee aysan shimbiraha kale garan karin. Sidoo kale, shimbirahan ayaa awood u leh inay dib uga soo laabtaan meelaha ay ka tageen, xitaa haddii ay ka fogaadaan boqolaal mayl. In shimbirahan loo adeegsado dhinaca isgaarsiinta waxay soo bilaabatay kumanaan sano ka hor, laakiin xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa la bilaabay inay u adeegsadaan hay'adaha sirdoonka. Xilligii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka, hay'adda sirdoonka ah ee laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa shimbiro u adeegsatay inay macluumaad ka soo qaadaan dhulkii Yurub ee la haystay. In ka badan 1000 shimbirood ayaa dib u soo laabtay fariimo ay ku jiraan xogo aad u muhiim ah oo ku saabsan habka ay u shaqeeyaan gantaalada V1 iyo weliba macluumaad kale oo la xiriira xarumaha isgaarsiinta ciidamada ee Jarmalka. Faylasha ayaa shaaciyay CIA ayaa lagu qeexay in Mareykanku ay howlgallo badan oo sirdoonka dhinaca badda ah u adeegsan jireen homborada. Ilaa xilliyadii dambe, ciidamada badda ee Mareykanka ayaa xayawaankaas u isticmaalayay inuu u baaro miinooyinka lagu qariyo biyaha hoostooda. Hase yeeshee, shimbiraha ayaa loo kala diri jiray dhul aad u fog oo ciidanka aysan si sahlan ku gaari karin. Inkastoo xogtan faahfaahsan la soo bandhigay, haddana weli waxaa sir ah tirada howlgallada ay shimbiraha ka qayb qaateen iyo weliba nooca ay ahaayeen sirihii ay heleen.